ما نعك على غادي شو هذا اللي عملوا دي هذه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إله نغدك وهنونسن dalkana hanuuniya dhammaan dadka Soomaaliyeed ee barnaamijka gufaaco ka daawanaya Somali Canadian TV kana dhageysanaya Radio Porame CKMS 102.7 FM waxa aan dadka Soomaaliyeed la wadaagaya waxa xaflad sagootiya loogu sameeyay magaalada Toronto aqooyahan Cabdiraxmaan Khaliif Shire waxa uu ahaa agaasiyihii habmaamuuska mas-uuliyadaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya xilligii kacaanka waxa uu kaloo ka soo shaqeeyay wakaaladda fi'aad iyo shirkadda caymiska qaranka waxa uu ka qalin jabiyay jaamacadda sharciga ee Badafo waxa kaloo ku takhasusay jaamacadda Cardiff United Kingdom dadka barnaamijka dhageysanaya xafladan sabootiga ah waxa sameeyay in aad loo yaqaan aqoonyahan siyaasi intaba aan oran karno iyo oday wa Cabdilaahi Fude waxa aan dadka Soomaaliyeed la wadaagaya magaalada Toronto waxa jooga dad magac iyo miisaan ku leh dalka Soomaaliya iyo meelo kala duwan oo adduunyada gaar ahaan magaalada Toronto iyo Ottawa waxaan dadka la wadaagaya magaalada Toronto inay ka mid tahay meelaha laga jaangooyo siyaasadda haday noqoto soo saaridda madaxweynaha iyo xildhibaanada waxa qayb ka ah wasiirada iyo xildhibaanada Soomaaliya qaar badan oo reer Canada qaarna ay ka soo noqdeen ra'iisul wasaare iyo ra'iisul wasaare ku xigeen intuba ay yihiin reer Canada waxa rabaa dadka meel walba ka dhageysanaya magaalada Toronto waxa jooga aqoonyahano runtii ruugcada aan oran karo waxaanan dadka Soomaaliyeed la wadaagaya mar walba in laga shaqeeyo midnimada waxaanan magaaladan aad ugu caan tahay soo dhaweynta dadka magaca leh iyo martisoorka magaalada Toronto dadka jooga haday noqoto siyaasiyiin iyo aqoonyahaniin intaba waxaan se dadka Soomaaliyeed la wadaagaya xaaladda Soomaalida maanta ku jirto inay xaalad u baahan tahay midnimo dalkeenu wuxuu yahay dal qaniya waxa uu leeyahay bad dhererkeega aad wada ogtihiin taqaanaan cadow badanna leh waxa uu leeyahay macdan nuucyadiisa iyo biyasiin waxaynu nahay dad ibtilo itixaan ku galay Soomaali qabyaalad waxay noo muuqatay iminka inaynu qaadanay wax la yiraahdo federalismka laakiin qabyaalada awgeed maanta marka uu qofku gobolkiisa iyo dadkiisa uu hadlo waxa lagu shaabadeynayaa reer Puntland haday ka hadlaan xuquuqda ay lahaayeen oo dani ka hadlo waxa lagu shaabadeynayaa reer hebel Jubaland haday ka hadlaan waa sida meelaha kale fara badan waa sida marka federalismku waxaad ogaataan dalkan aan joogay Canada had iyo jeer premierka Ontario iyo prime ministerka dalkani waxay isku haystaan qadiyado ku saabsan gobolkan Ontario sidaas oo kala Soomaaliya maamul goboleedyadu yihiin in badan dadku waxay u arkaan qabyaalad nooc kala laakiin waxa wanaagsan in laga shaqeeyo dalka midnimadiisa iyo dadka Soomaaliyeed sidii la isku soo dhaweyn lahaa waxa aan halkan ku cadeynaya waxa aan ka mid ahay forum ay ku badan yihiin aqoonyahano wadaniyiin Soomaaliyeed oo qaar safiirro soo ahaayeen wasiirro soo ahaayeen professors ahaayeen dad kala duwan waxaana dadkaasi hadafka ugu weyn uu yahay inay ka shaqeeyaan midnimada Soomaali ayna degaan iyo dhul kale lahayn marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in laga shaqeeyo midnimada in laga shaqeeyo Soomaali dhul inaanay iyo degaan kale lahayn waynu maqlaynaa dad degaana sheeganaya waana reer hebel leh laakiin waxa muhiim ah degaankan Soomaali reer ku doonto baa noqdee Soomaali inaanay kale lahayn halka barnaamijka aad
ka daawanaysaan Somali Kenyan TV kana dhegaysanaysaan radio Borame CKMS 102.7 FM anigoo Aamus Sultan Cali Cilmi Sultan